madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo khudbad ka jeediyay shirka nabad iyo xasiloonida geeska Afrika ee qaybta ka ah fadhiyada madasha iskaashiga wadamada Afrika iyo Japan ayaa soo bandhigay fursadaha ganacsi maalgashi ee ka jira guud ahaan dalalka geeska Afrika. madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in lagu garab istaago wadamada geeska Afrika ee qorshayaashooda horumarineed laguna dhiirigeliyo tallaabooyinka rusocodka ay qaadeen oo salka ku haya daris wanaagga iskaashiga isku duubnida dhaqaale amni iyo mid siyaasadeed. waxaan si cad u qeexay in qorshaheena muddada fog uu ku qotamo sidii aan mar labaad usoo celin lahayn kaalintuu dalkeenu ka leeyahay geeska Afrika. arrinkaas oon ka sameynay bilow fiican kadib markii aan hormuud ka noqonay dadaaladii dib u heshiisiineed iyo iskaashi ee saddex geesoodka ee dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia. sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si gaara fadhigan ugu soo dhaweeyay wafdiga dowladda walaalahan ay Jabuuti ee kasoo qayb galay shir duceedkan ku saabsan arrimaha geeska Afrika, isagoona adkeeyay doorka wax ku oolka ee dowladda iyo shacabka jamhuuriyadda Jabuuti ay ku leeyihiin dhaqaajinta hannaanka horumarineed ee gobolka. fadhigan gaarka waxaa si wadajir ah u gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Ethiopia mudane Abiy Ahmed, waxaana kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha dalka Japan mudane Shinzo, gudoomiyaha midowda Afrika mudane Musa Faqi, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, madaxweyne ku-xigeenka dalka koonfurta Suudaan mudane James Wani, wasiirada arrimaha dibadda dalalka Jabuuti mudane Maxamuud Cali Yuusuf, Eritrea mudane Cusmaan Saalixi, Kenya Marwo Monica Juma, madaxda hay'adaha caalamiga ee qaramada midoobay, midowda Yurub iyo daneeyaasha gobolka.